Assalaamu calaykum, habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, waqti walba ay ku tahay wanaagsan. Isku soo naqa dambo oo xiiso leh. Kusoo dhawaada mar walba gacmo furan, qalbi furan. Meeshaan naga daawanaysiin waa janalka Saki Midnimo. Kusoo dhawaada mar walba iyo saacad walba iyo waqti walba ay ku tahay. Caawa barnaamij waxaan haynaa maamo Soomaaliyeed oo u baahan in la caawiyo, dhaawac soo gaaray inay dhacday sinta ka jabtay. Bal wax yar horta intaan guda gelin bal nala daawado wax yar. marka hada jirkiya ana markaas qof iska weyn ahay oo aylin jirkiya dhamaaday marka laftiya marka sinta hoos u dhacday hoos markay u dhacday marka baawur garaas ka dhamaada amal way is xoqay marka si isku xoqays hilibkiya iga dhamaada marka hilibkii meesha ku jira dhamaada laftiya marka iduraysa laftiya habeenkii kama seexan karo way idikaamaysa habeen iyo maalin kama hooyad waa idikaamay wax badan aan sariir saarnay ilaahay ila ogiya iska xamaalna miisaan iskaga xamaali jir iska shaqaysir aan wiil jaamacad ku soo bar wax kasta ku soo sameeyay hadda laakiin musqusha wallahi iyo guriga waxa aan fadhigayga leeyo adeega wax ma qabsan karo isbitaalkii markaan tagay waxaa la dhahay waxa u baahan tahay qaliin raajid hata muslim ay aruuriyay ay saaray raajida markii la saaray waxa qaliina u baahan tahay lacag $5,000 keenso waxaan dhahay $5,000 ma haysta aniga marka ma ay dhahan dadkaaga dhaxgal kulay soo wax soo raadso si dadkii dhaxgal dadkii nin wax ay siiyaan waayo bas miskiinta sida maqlaysiin waxay iska suuqlay miisay ka shaqaysan jirtay hal wiil dhashay ku korsan jirtay ilaahay waa uu koriyay jaamacad ay bartay jaamacad waxa waa iskuul iyo jaamacad iyo wixii dhamaa ilaahay waa uu soo gargaaray ilaahay maqaadirtiis maalmaha kamid ah iska dhacday sinta wuxuu ka gaarday dhaawac markuu sinta dhaawac ka gaaran waa iska dareemi kartaa lafihii iyo wixii iyo maxaa la yiraahdaa waxay u baahan yihiin kulli in la dabiibay u baahneed amba la kabo meena kaban oo iska maaragtay duruufteeda iska bursanaysay hadda waxa waaye waxa taqtar tagtay maadaama dikaan ay ku jiifowis waxa lagu dhahay raajiga la saaray waxa la dhahay maxaa la yiraahdaa waxa u baahan tahay qalitaan lacag $5,000 keenso marka waxay dhahday ciidaheena wax weydiiyay waa ka waayay marka Soomaaliyeena sidoo soo dhaxgalay bal horta waxa waaye Soomaaliyay bal aan u gargaarno dadka masaakiinta baahan mar walba maadaama la lahay $5,000 ayaa lagu qalayaa aysa awoodin dadka familkeedana ay weydiisay ay ka weysay wax caawinaad ah markaas waxay tiri Soomaalida inay caawiyaan ayaan ka codsanayaa kulli waxa waaye maanta waa maalin adduunyaalo berrina waa maalin aakhiro qof walba Soomaali oo awoodo $10 $5 sida iyadoo sheegayso wax walba yaraan ma lahan sadaqada tii 100 awoodo tii 200 awoodo ilaahay wax walba qofku sida u siiyo ha u baxsato ilaahay maartay sadaqada hala dhiibto dhahay maalin ku fakanaysa waa maalinta ismaal adduunyo wax ku tirin oo maalinta yawmal qiyaamaha la taagay marka hada jirkiya ana markaas qof iska weyn ahay oo aylin jirkiya dhamaaday marka laftiya marka sinta hoos u dhacday hoos markay u dhacday marka baawur garaas ka dhamaada amal way is xoqay marka si isku xoqays hilibkiya iga dhamaada marka hilibkii meesha ku jira dhamaada laftiya marka iduraysa laftiya habeenkii kama seexan karo way idikaamaysa habeen iyo maalin kama hooyad waa idikaamay wax badan aan sariir saarnay ilaahay ila ogiya iska xamaalna miisaan iskaga xamaali jir iska shaqaysir aan wiil jaamacad ku soo bar wax kasta ku soo sameeyay hadda laakiin musqusha wallahi iyo guriga waxa aan fadhigayga leeyo adeega wax ma qabsan karo isbitaalkii markaan tagay waxaa la dhahay waxa u baahan tahay qaliin raajid hata muslim ay aruuriyay ay saaray raajida markii la saaray waxa qaliina u baahan tahay lacag $5,000 keenso waxaan dhahay $5,000 ma haysta aniga marka ma ay dhahan dadkaaga dhaxgal kulay soo wax soo raadso si dadkii dhaxgal dadkii nin wax ay siiyaan waayo waxa kale oo ay xustay inta ay kaga diran tahay wax la baxda iyo qofkan wax la bixinbo hal la gaarsiiyo walaalaha kale muslimiinta walaalkaas kaloo la gaarsiiyay hadduu qof kale sii gaarsiiyay xataa naftaada ajira ku socoto ajirkaas oo ay ina wax la baxdid ma aha muhiimada in qof walba muslim gaarsiin karta gaarsiin khayr Allah in si mar walba ummadda waxa waaye
mar walba waa la isku baahan yahay, keena daruufta hayso iyo keena wax haystaba mar walba waa isku wada baahana inaan gacmaha is wada qabsano insha allah biidni illaahi kariim. mar walba soo dhawaada, mar walbo gacmo furan kusoo dhawaada insha allah biidni illaahi kariim. habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, waqti walba intaay wanaagsan insha allah. isku soo naqa dambo oo wacan insha allah kan aan ku xigo insha allah biidni illaahi kariim. maca salaama insha allah.